maalmo ka hor waxaynu halkan MMWire ku baahinay xogaha quseeya in ugu dambeyn boqortooyada Sacuudi Arabia si buuxda u garab istaagtay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan kadib markii dhaxal sugaha boqortooyada wadankan Mohammed bin Salman oo telefoon kula hadlay madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian uu sheegay inaysan boqortooyadu aqbalayn in badeeda cirkeeda iyo dhulkeeda midna laga weeraro Iiraan. Tani waxay ahayd garab istaagii ugu weynaa ee Tehran ka filan kartay boqortooyada Sacuudiga. Wax ka badan kaalmo ciidan iyo hubeed ayay uga dhignay Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Haddii aan taasi micnaynona, dagaalka casriga ah ee dunidan maanta, wax walba waxaa ka mudan helitaanka furin fududayn karta guul aad hesho, mid cireed iyo dhuleed labadaba. Riyaadna waxay tiri maya, dalkaygu ma noqonayo furimaha laga hujuumo Iiraan. Kadib tallaabadan Sacuudigu ku dhiiraday, waxay u muuqatay in laba wadan oo waqti dheer uu ka dhaxeeyay dagaal wakaaladeedka gobolka ee aan xasilin isku faro saaray Lubnaan ilaa Yemen ay haatan jaalnimo iyo iskarabsi ku heshiiyeen. Waxay ahayd mid aan dhaqso loo filayn iyo mid khubaradu ku qaybsameen ujeedada ka dambaysa. Ha yeeshee ay isku raaceen intooda badan in sababtu noqon karto inaan boqortooyadu maslaxad ka dhex arag dagaal haatan gobolka ka curta. Diidmada in xuduudaheeda laga weeraro Iiraan ay ugu yaraan hoos u dhigi karto doonista dagaalka ee Mareykanka jaalka dowla boqortooyada Mohammed bin Salman inuu cod dheer ku sheego garab istaagiisa Iiraan wax weyn ayay uga dhignayd, waxaana loo arkayay inuu dhacay isbedel siyaasi ah dhaqso leh oo aan la garanayn waxa bilowgiisa gundhiga u ahaa. Ha yeeshee shalay ayay xaajadu waji kala yeelatay markii ay soo baxeen xogaha tibaaxaya in boqortooyada Sacuudigu doonayso in la dedejiyo dagaalka Mareykanka ee ka dhanka ah Iiraan. Shabakad wareedda Axios lagu magacaabo ayaa ku warantay in wasiirka difaaca boqortooyada Sacuudiga Amir Khalid bin Salman, walaalka yar ee Mohammed bin Salman, uu Washington u sheegay in Donald Trump dardargeliyo ficil u bedelidda hanjabaadihiisa ka dhanka ah Iiraan, isagoo sheegay in haddii taasi dhici weydo ay Jamhuuriyadda Islaamiga ahi sii xoogaysan doonto, taas oo aan ku jirin doonista Riyaad. Wasiirka difaaca Sacuudiga, Amirkan magaciisa loo soo gaabiyo KBS, ayaa lagu warramay inuu Washington u tegay shirar hoosaad quseeya xiisadda gobolka ee Mareykanka iyo Iiraan. Waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio, xogayaha wasaaradda difaaca dalkaas Pete Hegseth, wakiilka aqalka cad Steve Witkoff, iyo taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Dan Kane. Waxaana ilo sugan laga xigtay in diiradda kulankani ahayd suurtogalnimada howlgal laga fuliyo gudaha Iiraan. Xogtu waxay intaas ku dartay in kulamadan oo ay qayb ka ahaayeen khubaro bariga dhexe ah iyo xubno Yuhuud ah, in wasiirka difaaca boqortooyadu hoosta ka xariiqay doonista Sacuudiga ee ah in Trump dedejiyo tallaabo militari oo ka dhana Tehran, iyadoo laga taxadarayo buu yiri khataraha ka dhalan kara tallaabada ee wax u dhimi kara xasiloonida gobolka. Tallaabadan waxaa lagu micneeyay in Sacuudigu doonayo inaan Trump u arag inay kala jirsadeen Iiraan, sidoo kale in Riyaad doonayso inay dhab u xaqiijiso doonisteeda la jaal noqoshada Israel oo iyana ah dadaal haatan dhaqangelintiisa lagu howlan yahay sida ay xoguhu wariyeen. Waxa uu Amir Khalid bin Salman waxba kama jiraan ugu yeeray dareen ay ka qaybgalayaasha kulamadan ee Yahuudda ahi ka muujiyeen. Waxay ugu yeereen nacaybka kobcaya ee rayidka Sacuudigu baraha bulshada u marinayaan Israel. Sida ay warbixintu tiri, Amir Khalid waxa uu marar badan ku celceliyay intani tahay maalayacni aan raad lahayn, marka laga yimaado in xogtani si cad u khilaaftay hadalkii dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudigu ku garab istaagay Iiraan maalmo ka hor. Waxaa sidoo kale tallaabadan wasiirka difaacu meesha ka saaraysa diidmadii Mohammed bin Salman ka muujiyay caadiyeynta xiriirka Israel iyo Sacuudiga intii uu ku guda jiray booqashadiisii aqalka cad ee November 2025.